halkan waa deegaanka Bulcalle waan kormeer shaqo ku nimid saakay waxaa halkan kala dhacay shalay dagaallo lagula jiray argagixisada al-shabaab oo dalkan iyo dadkaba dhib ku ah deegaamadan ka sameeyay dhibo badan dadkii reer miyiga ahaa ay ku dhibayeen xoolahoodii ka qaateen guryahoodii ka gubeen dumarkii ay ka kaxaysteen sidaasaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada qaranka Soomaaliya oo wada jira halkan u yimaadeen waxaa ka howlgalay halkan ciidanka qaybta 12aad ciidanka danab iyo ciidanka nabad sugidda qaranka ayagoo iskaashanaya ayay wax ka dagaal galeen halkan waxay shalay cadawga ku gaarsiiyeen khasaaro nafeed iyo mid maal intaba waxa laga furto hub waxaasoo dhani waxay u yihiin cashar kuwa ka dambeeya ee soo abaabulay u fadhiya gadaal rabo ummadda inay ku dhibaan waxaan halkan uga mahadcelinayaa ciidamada qaranka dhammaantood halkan ka howlgalay oo hogaaminayo ammaanduulaha qaybta 12aad sidaas oo kale iyo saraakiishii la joogtay deegaanka ka shaqeynaysay sida saraakiisha taliyaha guutada 15aad iyo taliyaha guutada 13aad iyo taliyaha nabad sugidda maamul goboleedka Galmudug iyo taliyaha ciidanka danab waxaan rabnaa inaan ka cadeyno halkan shacabka u sheegno waxaan u taaganaa waxay tahay ciidankana u taagan yihiin inay qabtaan shaqada muhiimka oo ah deegaanka iyo dadkaba waxaan rabnaa inaan haddii lahaa idmo ka sifayno waad ogtihiin weeyga la soo dhaafay dagaal baa ka dhacay Shabeellow waa looga adkaaday wuxuu ka dhacay qaayib meelaha soonaheeda waa looga adkaaday waxaan rajaynayaa haddii lahaa idmo inaanu meelihii ay joogeen aan u tagi doono ciidankana waxaan ugu mahadcelinayaa si 100%